magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaba iyo dhammaanba degmooyinka hoos yimaada gobolka Sanaag ayaa si ballaaran looga dareemayaa u diyaar garowga qabanqaabada xuska maalinta 18 May ee ku beegan sanad guuradii 25aad ee ka soo wareegtay xilligii la soo noqoshada madaxbannaanida qarannimada Soomaaliland waxaana guryaha iyo goobaha ganacsiga ee degmooyinka gobolka Sanaag dhammaantoodba lagu xardhay midabada calanka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo halkudhigyo iyo qoraallo ka turjumaya qiimaha maalintan ay ugu fadhido shacbiga reer Soomaaliland ciidamada booliiska militariga iyo asluubta ayaa iyaguna dhankooda diyaar garow ballaaran ugu jira weynaynta xuska maalinta 18 May ee fadhi nagu soo haysa waxaana ciidamada kala duwan ay soo bandhigeen dowlatus ballaaran oo ay ku qaabili doonaan xuska maalinta 18 May ee ku suntan la soo noqoshada xorriyadda qarannimada Soomaaliland gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac Falaayo ay weheliyaan saraakiisha kala duwan ee ciidamada iyo guddiga qabanqaabada munaasabadda 18 May ee gobolka Sanaag ayaa shacbiga gobolka Sanaag ciidamada qaranka iyo hay'adaha laamaha dawladda ku bogaadiyay u diyaar garowga ballaaran ee ay ku qaabili doonaan weynaynta xuska maalinta 18 May ee waxa halkan lagu soo bandhigay diyaar garowgii 18 May ee 25 jirsatay oo ciidamada kala duwan ee gobolka ka howlgala ay halkan gaadakaciyaan iyo dowlatus weyn oo fariin weyn ay u direen cadawga Soomaaliland oo halkan ay ku muujiyeen cadawada waa tijaabo hordhaca tii weyneed ee ahayd 18 Mayna hadii ilaahay ka dhigo waxay dhici doontaa ayaamul qaadiba foodada lagu soo haya biidmillaahi baari waxa kale oo la rabaa dhammaan dadweynaha reer Sanaag gaar ahaan inay ka qayb galaan xuska 25 jirsaday ee rubco qarniga ah ee 18 May walaalayaal aad iyo aad baan runtii ugu haweynahay inaynu noqon doono kuwa ugu diyaar garowga fiican Soomaali waxa tadawurin dhaadhaama waa la arki doonaa waxa ay soo cid walba waxay tarto waa la arki doonaa waxaan leeyahay maalintaas xagga nabadgelyadana waanu ka shaqeynaynaa xagga kalena waxaan soo bandhigno warin dhaadhaamay noqonaysaayo waa la arki doonaa halkaas lagu arki doonaa insha Allah waxaanu rajaynaynaa gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland gobolka ugu horeeya inuu noqon doono waxaan salaan gaar ah u dirayaa ciidamada iyo macallimiintooda oo si fiican u soo agaasimay marlabaadka waxaan waa tartankaas waxa weeye waxa loo tartamayaa gobol waxa loo tartamayaa degmo waxa loo tartamayaa koox waxa weeye wacdarahana oo waliba waxa soo muujisay jaayisadeeda helaysa balasaabkii gobolka waa nala taagan waxaanu u sheegaynaa ballan qaadayna garoonku intuu qaadi karo oo arday ah inaanu ka buuxino subaxa bal nin waliba wixii uu taro in la isarki doono waanu u diyaar garownay Maxamed Xasan Saraaf warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceergabo